qofka muslimka ah waa qof iskala weyn waqtigiisa inuu ku lumiyo heblaaya wax iga sheegtay hebel baa wariga faafiyay waxan baa la yiri qofkan ima jecla kani waa in necab yahay wax hoose qofka muslimka inuu ku wareego qofka muslimka waa inuu iskala weynaado qofka muslimka waa inuu noqdo qof meel sare ku laalan qof waxa weeye dareensan macnaha iimaanka uu xambaarsan yahay islaamnimada qiimaha ay leedahay waa inay dareensanaato wuxuu noqonayaa qof hanweyn oo waxyaabaad fara badan oo maanta lagu baayo oo waqtigooda qofka bini'aadamka ay ku lumiyeen qof aan jeclayn waqtigiisa inuu ku lumiyo waxa la soo naqliyaa waqtigii nabiga baa nin soo islaamay baa markuu muddo islaam ahaa ee macaanimadii islaamka caankii islaamka uu dhandhamiyay ee waxa way qiimihii islaamka diinta uu arkay baa maalmaha kamida uu geeraaray markaas waxa uu balaqna samaa majdan wa su'dada wa inna lanarju fawqa dhalika madhara waxa uu hadda waqtiga aan joogno kal hadaan islaamnay wuxuu balaqna samaa majdan wa su'dada wuxuu sharafteedu waxay gaadhay wuxuu samada ayay gaadhay wuxuu wa inna lanarju fawqa dhalika madhara laakiin samada laftigeeda inaan sii dhaafno baan ku hanweynahay markii la weydiiyay la ila ayn xageed samada u dhaafaysa wuxuu ila aljanna jannadan u sii dhaafayna qofka muslimku waa inuu noqdo qof hanweyn nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu ina baray hadaan xitaa ilaahay janno weydiisanayno waa inaanu weydiisano maxay jannatul firdaws waa inaan weydiisano anigu janno hadaan galo cadaab ka badbaada igu filan maya xataa lagu gudiiday janno hadaad gasho waa kugu filanta waa kugu filantahay laakiin markaad ilaahay bariyayso ilaahu janno igee laguma ogolaanin laakiin waxa uu ilaahay markaad janno weydiisanayso janno kaliya taha weydiisane jannata loo yaqaan jannatul firdaws jannooyinka ugu sareysa ilaahay weydiiso waxa la diiday meel soo ka inaad ku dhacdo qof hankiisu yar yahay inaad noqoto ilaahina quraanka waxa uu leeyahay wa anna hada siraadun alayya mustaqim qiraa'aadka culimada ay soo naqliyaan waxa kamid ah wa anna hada siraadun aliyyun mustaqim jidka islaamku inuu yahay jid sareeya qofka muslimka markuu saaran yahay waa qof meel sare saaran adduunyadan iyo waxa la isku haysta iyo waxa way hankan kaaban iyo waxan la jaaxa loo arkay la qiimeeyo iyo qof hoos u fiirinayo way waa ina taqaano mar labaad waxay ku xiran tahay najaax maxaan u aqaana inaynu naqaano yaanu nahay man nahnu qadiyadaas waa qadiyad laga maarmaan walaalayaal markaad muslim tahay bini aadamku waad ka duwan tahay markaad muslim tahay waxa way qiimahaagu waa ka duwan qiimaha qofka bini aadamku uu leeyahay markaad muslim tahay aragtida adduunka aad ka haysato waa ka duwan tahay aadama markaad muslim tahay waxyaabaadkan shilimaanta iyo dhaldhalaalka iyo waraaqahan la qaadanayo walow qofka muslimku u baahan yahay isaga laftigiisu haddana inay inta kuugu ekaato waa ayaan dara weey inta inay kuugu ekaato waxa way waa musiibo weey qofka muslimka marka waa inuu noqdo qof waxa way han weyn walaalayaal oo meel sare hiigsanaya